بسم الله الرحمن الرحيم. qaybtani markaas inoo dambayso insha Allah waxaan noqon doontaa qaybtani ugu dambeysay waxaan isku daynaa markaas in online ka dhigno inaan deploy gareyno waxaan ku hoos gareyn doonaa insha Allah Netlify isticmaali doonaa Netlify kan markaas isticmaal doonaa iska free ahaan u helaysaa inta markaas waxaad u baahan tahay inaad login sameysid haddii aadan account ku lahayn marka hore kadib waxaad u baahan tahay inaad sign up meeshaasi aad sameysid saaragta hadeertan horey account ayaa u lahay kaliya waxaan login ayaan dhahay waxay soo kacay markaasi Netlify gani okay inta uu socdo meesha waxaan ku arkaa projectii hore u sameeyay meesha ku qoran soo marka waxay haysataa 100 GB haystaa intaas oo kaliya ayaa ilaa hadeertan ka isticmaalay waa kan kii u dambeeyay quraankii ahay soo marka anagana keena ayaan sameysanaynaa waxa u baahan tahay marka horeeta tan iska xirno waxa u baahan yahay markaasi waxay iska soo weynayno sidaan asigoo macnaha saddex qaab ama qaab waxa jirta markaasi online lagu dhigo laakiin anaga waxa iska isticmaalda xaluu magacaabo CLI aan isticmaal doonaa CLI ga markaasi aad u sahlan yahay marka hore u baahan yahay markaasi in production ready ka dhigno sidoo ugu dhiganaa waxa leenahay markaasi npm run build ayaan buildiga macnaheedu waxay tahay kan ayuu xukriyaa markaas qaabka production ayuu ka dhigayaa so okay intaas markaas sameeysid wuxuu sameeyaa markaas waqti yar ayuu qaadanayaa meesha ku soo dirsaagta folder loo magacaabo build ayuu ku soo diray hore ugu jirin waxyaabahan meesha ku qordhabaan static ahaan ayuu ka dhigaa kadib static qaybkaas inta ayuu ku shubi doonaa kadib ayaa markaasi ku daynaa markaas Netlify inaan isticmaalno okay inta uu kan socdo waxaan u baahanahay markaasi waxaan u baahanahay terminalka kala qaybi waxaan ku shubaynaa lagu magacaabo npm ayaan leenahay install kadib waxaa leenahay markaas netlify.cli.g intaas ayaa sameynayna enter ayaa leenahay okay kan ayaa oo socdaa saartan building noo dhameeyay markaasi okay building noo dhameeyay inta waxaa noo soo baxay markaas folder markaas lagu magacaabo build okay kana kala iska xirno okay marka hore muxuu sameeynaa markaasi inta markaas macnaheedu waxay tahay waxaan ku shubaynaa global ahaan ayaa markaasi CLI gaasi aan markaasi ugu shubaynaa okay muxuu yahay okay waxaa leenahay markaasi npm install netlify cli.g inta ayaa leenahay cilada haddii inta kaa qabsato waxaa fiirsaa terminalka caadiga fiiri haddii kaa qabto cmd-daada xaqiiji ama PowerShell ka xaqiiji laga yaabo mararka qaar Windows markaad isticmaalaysid wuxuu PowerShell ku ka diidaa ama VS Code kan terminalka uu ka diidaa soo marka cmd-da ku tijaabi qaab waxa u soo kicinaysa markaas administrator ahaan u soo kicinaysa okay had saaragtaa wuxuu wadaa markaas installation ayuu wadaa inta markuu sameeyay si simple laba command ama saddex command oo kaliya ay qorayna kadibna online ayuu noqon doonaa okay waxaan iska sugaynaa markaas inta hawshan uu wado mustaqbalka insha Allah waxaan sameyn doonaa markaas projectiyo fara badan kaliya waqtiga cariiri uu waan jeclaa markaas projectiyo markaas kala duwan aad u fara badan inaan sameeyo oo daily markaas video aan u sameeyo kaliya waxaa isoo degelina markaas waqtiga markaas cariiri uu laakiin insha Allah isku dayna markaasi video walba ama project walba markaan bilaawno inaan si fiican uga hadalno aan isku dayna markaas hal mar asoo dhameystiran aan soo dhigo markaasi 45 daqiiqo hal saac 2 saac 3 saac inta markaas videogaasi uu qaadanayo mustaqbalkan waxaan rajeynaa markaas insha Allah mar dhow in aan sameeyo waqti aan raadinayo react oo complete laga soo bilaabo ilaa dhamaad inaan isla sameeyno oo macnaha waxyaabo badan ku baran doono kadibna waxaan sameyn doonaa insha Allah Node.js inaan galno asiga si fiican u sameyno kadib aan sameyno markaas Node iyo isku darno React oo ka dhigna markaas full stack sameyno hadda waxaan sameynaynaa waa kaliya waa front end ayaan sameynaynaa weli qaybta database-ka markaas lama tacaamulin sidoo kale tan waxaan rajeynaa markaas inaan sameeyo database-ka inaan sameeyo Postgres ama main stack labadaas mid ka mid in course aan ka sameeyo insha Allah waan rajeynayaa oo qorshe ay ku jirtaa
kaliya waxaan raadinaa markaas waqtigii aan ku sameyn lahay okay waqti ayuu qaatay installationkaasi waxa laga yaabaa internetkaaga mar hadii uu internetka daciifka ayaa macquul ah internetka iska roon yahay laakiin ma aqaan internetka xogaa laga haystaa okay iska sugana macna ma leh almost wuu bilaabay wuu dhameer wax yar oo harsan oo kaliya okay saartan buu dhameeyay intaas markaas meesid macnaheedu waxay tahay kan global ahaan ayaa ugu shubeysaa kida clear ana iska tirtirno ama CLS ayaa leedahay okay inta markaas meesid waxa leedahay markaasi netlify kadib waxa leedahay markaasi deploy simple okay deploy ayaa leedahay enter okay ayaa leedahay marka enter netlify kadibna deploy okay su'aaliya ay ku weydiin doonaa su'aasha ugu horeysa markaas oo ku weydiin waxa leedahay okay this folder is not linked to the site yet okay what would you like to do so marka waxa leedahay markaas create and configure a new site ay dhigana link this directory to an existing site so marka ana waxa baahnaa markaasi in mid cusub aan sameeyno sababtoo ah horey uma aan lahayn markaasi quraankan horey online uma dhigin haddii kan online ka dhigi lahayn waxa adeegsanay markaasi link this directory to an existing site so marka waxa leedahay datan create a new site oo bilow aan doornayna inta ay leedahay waxa ku weydiin doonaa markaasi magaca ayuu ku weydiin doonaa teamka waxa leeyahay markaasi magacaas Axmed Ibrahim iska soo baxay inta ay leeyahay siis ayaa ku dhaafayaa sidoo kale wuxuu ku weydiin markaasi site name kaagi optional ah adirtu waa ka tagi kartaa site name kaas waxa leeyahay markaasi Quran okay coding Quran version 2 okay coding -Quran -version 2 ayaa u bixiyay inta ayaan dhahay markaasi okay saartan meesha waxa ku soo diray markaas folder yar ayaa ku soo diray site JSON kaas markaas ku jiro soo kale su'aashka noo weydiin waxay tahay wuxuu raadinaa markaasi buildigan uu raadinaa so waxa building ku sameysay ma dhamaanam inta hadda waxaan taaganahay aniga banaankan rootka ayaa taaganahay soo marka waxaan u baahanahay inaan u sheego qaybtaas in deploy aan ku sameynayna buildigaasi so waxa leeyahay markaas // kadib waxa leeyahay build folderkaas gudihiisa ayuu ku jiraa inta ay leedahay saartanba shaqada deploying ayuu bilaabay hawsha ayuu wadaa okay failashii static dhamaan waxa isku dayay inuu qaado oo xaq korka uu ka soo geeyo okay wuu dhameeyay saartanba waa test gareynayna markaasi waxaan adeegsanaa marka linkigan uu nasiiyay ayaa copy leenahay copy waxaan tagaynaa qaybtan paste ayaa ku leenahay okay copy normal ama saa click leenahay okay configure and trusted domain okay open there saartanba laakiin waa sameynay laakiin waxaan naga qaatay qaabkaas ayuu naga qaatay markaasi aan ku noqono ugu dambeyn waxaa u baahanaa markaa dhahdid netlify okay deploy production so marka kan testing oo hay kaliya waxaan fiirinayaa dhamaan inuu noo shaqeynayo haddii uu shaqeeyay saartaba uu shaqeeyay bismillah waxaan u baahanaa markaas inaan qorno commandigaas kaleeto ah netlify deploy production inta ay leedahay hadda waxaan sameynaa oo kaliya installationka oo configurationka installationka guud aan sameynay iyo labadan oo deploy aan sameyn oo kaliya sida la mid ah isna wuxuu leeyahay ma folderkan rabta inaad build ku sameyso macnaha folder building ku sameyso dhex taaganta maya ku dhex jira meeshaas okay deploying wada okay wuu dhameeyay saartan magaca si maxay tahay magaca maxay tahay website URL waa magacan open it waa brocoding -Quran-version 2.netlify.app okay click siyadartan صوت البقرة بسم الله okay saartan waxa ka dhigay markaas online ayaa ka dhignay si free ah hadda website ka meesha ku noqono refresh dhahno
okay waxaa kusoo darnay hadeertan saa aragtaanba Brocoding Quran version 2 ayaa kusoo darnay markaasi oo manual deployment ayaa isticmaalnay okay qaabkaas ay markaas waxaa ku samayn kartaa iyadana deployment ku samayn kartaa fadlan video hadduu ku caawiyey subscribe like comment share inta la samee asxaabtan markaas la share garay aad umahadsantihiin qeybaheeni dhammaan markaasi reacti appkan ku saabsan inta ayuu ku egyahay oo aan gabagabeynay insha Allah projectii kale tuna bilaw doonaa kali waqti ayaa markaasi fiirinaa oo waxyaabo badan aan sameyn arabno marka subscribe saar si markaasi aan isku la socono insha Allah